السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا لله وإنا إليه راجعون. marka ugu horeysa dadkii waxaan si weyn u tacsiideynayaa dhammaan dadkii ku geeriyooday magaalada Boorama qalaalasii ka dhacay. Waxa kaloon ilaahay uga baryayaa intii dhaawac ahaydna inuu ilaahay u boogadhayo. sabir iyo iimaanna Allah inaga siiyo intii geeriyootay. waxaan halkan maanta ku wada joognaa aliye madaxweyne muuse iyo rag kale oo ganacsatay iyo culamo ah oo halkan isku yimid arrintaa dhacdayna sidii loo furdaamin lahaa taladeedii ku jirnay. waxaan taladaasi xidhiir la samaynay ilaa madaxweynihii waxaanan ka codsannay in hawshaa la joojiyo inta taladeeda dib loo galayo loona daweynayo wixii meesha ka dhacay. wuuna nala qaatay isaguna uu hadlay. waxaan soo jeedinayaa ree awdal dhallinyarada inaad joojisaan rabshadaha meesha ka socda oo maaragtaanay aad rabashka iyo dhacdooyinka dhacaya wax dambina inayna dhicin aad maqashaan waxgaradka odayaashiina iyo ergooyinka idiin yimaada. waxaa kaloo la hadalay gandihii waxaan la hadalay qoladii ogaaska la joogtay iyakana aan u sheegnay in arrintaa la joojiyo. waxayna noqonaysaa arrintaa dhiigga iyo dhibaatada marka la xallilo in dadka walaalaha la walaaleeyo dhibaatadana meesha laga saaro. waxaan idiin soo jeedinayaa talada aan soo jeedinay inaad qaadataan oo la joojiyo rabash dambe oo dhulkaa ka dhacana la joojiyo meel kastoo ka mid ah gobolka awdal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصير أن لفرينين وكذي سنوات لمشو دجال فوق أين فرين براي. نرشنا واحد لبعض الصعوبة إلهي وقرأ كيسكو شيء برياد بيني بالوا أبوي مرة بوحليه. مركب وحنلان ما أنت وحيد دعي. nin waliba uu ka xun yahay qof kastoo muslima iyo qof kastoo waxgarada iyo qof kastoo Soomaali ku hadlaba waa ka xun yahay. maanta waxaan oran ka tacsiyadeynaa oo tacsiid tiraanyal u diraynaa qaranka ehelkii gobolka iyo dadkii ay ka dhinteen ama ay ka dhaawacmeen wixii halkaa dadkii wax ku noqon. waxaanu ilaahay ka rajaynayaa wixii dhinteen inuu u naxariisto kuwa dhaawacmana ilaahay inoo caafiyo dhibtanna ilaahay inaga qaboojiyo oo aan intaa inagu dhaafin. markii la isu yimid waxaanu ay nala noqotay in marka u horeysa sida mushkiladuba loo xalliyo si xabadda loo joojiyo horta in la waaniyo ama lagu duulo xagga dowladda oo la dowladda wax walba qaado dhulka dhig wax walba wax maqal. madaxweyne waa taa waa aqbalay wixii la soo jeedina waa qaatay nabad in la doonana waa ballan qaaday waanu fulinayaa waayo nabad wax dhaanta lama hayo. qaar badan baa laga yaabaa inay yidhahdaan ninkaa buu hadlaya mayaan muuse ahayna nabadda doonaya waayo aragnimada ay baraysa in nabadda la doono. qaar badan Soomaali ku hadla waana soo ognahay waayo aragnimadu waxay kuu sheegaysaa wax walba in nabadda koro weligeed nabaddaan doonaya haddii dee la fahmi waayo oo la gurxacana dadkii ciddii wax diiday baa leh. waxaan intaa raacinaya sidaa la sheegay awdal dadkeeda waxaanu ka codsanaynaa maanta inay isxakameeyaan dhallinyarada awdal iyo hablahooda iyo haweenkooda iyo odayaashooda walaalayaal intaasoo jeer oy Soomaaliland wax ka dhaceen baa erga ku tagteen mar walboo laydin aqbalay kow iyo laba iyo saddex maaha. marka la arko ergada awdal ka timid wax alle iyo waxay yidhaahdaan waa loo dhega nuglaa waanay fara badnaayeen. Somaliland magacaasaa ku lahaydeen abaalkaana waa laydin hayay. maanta haddii laydin soo ergayo maqla ergada maqla maanta nabad baa laydinku ogaa waxaa qaado weydaan iyo waxaad tabanaysaan waa laga wada hadlay.
waxaad gar ku leedihiin waa laga garaan dhinaca kale waxaanu leenahay maanta dil baa dhacay dhimashaa taalla mayd baa yaalla waa carruurtiinnii abti iyo inaabtigaa iyo walaalkaa way u xadhintay maanta inooma joogto inaynu ka hadalno xaflad iyo waxaynu hadal qaadoo kale dhulkaa la dhigaya taha ka bacdi waxaa la gelayaa ergo la xulo la miisaamo arrintan inay xalli karto waxaa labada dhinac isku hayaan dadweynaha waxaan u sheegayaa maanta ma joogto xafladdii xeerka masiibo ka weyn baa timid taasaa la xalilaya taasaynu xalilaynaa oo loo soo wada jeedaa dhallinyarada cadhada iyo xanuunka war waanu isla qaybsanaynaa weligeed ba way dhici jirtay waxaanu codsanaynaa inaad isxakamaysaan sidii aad u ergen jirteen baa maanta ummaddoo dhan idinku ergeynaysaa inaad ergadana qaadataan waalidka inaad ixtiraamtaan odayaasha inaad ixtiraamtaan arrintii dhulkaa la dhigay idina dhiga walaalayaal oo ummadda ka maqla maanta ergada si aynu waxeennii iyo hawsheennii iyo dhibaatada dhacday u wada daweyno waa idin tacsiidaynaynaa waanu idin iman doonaa arrinta waynu isla gorfayn doonaa wixii insha allaahu wanaag iyo nabad iyo safgarad baynu ku dhammayn doonaa shee awdala taasaan u soo diraya aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay taladeenna ha toosiyo ilaahay dhexdeenna nabad iyo barwaaqo iyo xadhaha ku soo celiyo ilaahay fidmada haynaga dhex saaro shaydaanka naga dhex boodo ilaahay haynaga qabto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu